magacay waxa weeye Faysal Xasan runtii waxaan isku tiriyaa inaan wax yar ka oran karo suugaanta suugaantu waxay u dhacay aniga jacaylkaasina wuxuu qabtay inan marka jacaylku waxa weeye dunidan aan ku noolnahay waxyaabaha saldhigga ah sawirka marka aan qaatay waxa weeye eray kasta oo afkayga ka soo baxayay wuxuu matalayay qaabka aan u jeclaa inantaa iyo shabaha inantaas xitaa lahay iyo aniga naftaydu sida ay dareemayso xilliga matalan waxa kamid ahayd maalin maalmaha kamid oo ahayd baan malaynayaa runtii sanadkii 2014 February 28 maalintii ugu dambeysay bisha ayaan gabadhii aan jeclaa anigu baa isla hadlay marka isla hadalkii heestan uu iga keenay waxaan idhi jacayl aan dhammaan baad feedhaydi bidixay dhaqso igu beerto faysay bisbaana fiidkii markay tahay naftu ila faqdaayo wajigaaga quruxda leh marba daawadaayo feeling loo horkeena fahmi weydi adiguna taas waxay ahayd marka sawir jacaylkii baan sawirayo wixii hor yaalay aniga inantii sidii filimka u daawaday filmo jacaylo waxay jireen matalan film aan la yaabay oo dumarka Soomaaliyeed ay jecel yihiin oo hanadiya ay yiraahdaan tabtiisa saana wax la horkeenayo intii u baafaysan intuu bay hortaagay mar kale haddana intaan yiri ka rogo laba saaran ay haddana hortiyo aan hadalla kala ka iliyo iska jacayla tiri heestina waxay odhanaysay laba dhoof ku kala maqan midba gaar u nool yahay dana kaba dhaxayso isdoontoone muddo dheer danahooda khaaska ah inta ay ka doodeen damal wada fadhiisteen danahooda eegeen darandoori hadalkaas daawashada ku wacana hadaad joogi lahayd oo qoftu mar qurun ugu soo fadhiisato bal adduunkaba hadday doonto aba jacaylkaagu intaa ku kacda masarakaan oo laba qof caadi ah oo soo fadhiistaan ana qiimaha jacaylku leeyahay waxaan xitaa gaadeen raad wadno intaan jeclahay xitaa marun ma hor fadhiisato Thank you.